magaalada Burco waxaa maanta si rasmi ah looga dhawaaqay urur siyaasadeed cusub oo loogu magac daray Iftiin kaasi oo wax ka qaban doona qaybo badan waxaana xafladii urur siyaasadeedkan cusub loogu wanqalayay ka soo qayb galay qaar ka mid ah madaxda dhaqanka haween dhalinyaro iyo marti sharaf badan kuwaasi oo sheegay inay si weyn u taageeri doonaan ururkan urur siyaasadeedkan cusub ee Iftiin waxa gudoomiye ka Cabdiqaadir Cali Obsiye waxaana la sheegay in maanta 6 gobol ee Soomaaliland laga dhawaaqi doono ururkan furitaankii xafladda wanqashana waxa ka hadlay Suldaan Ibraahim Daahir oo kamid ah salaadiinta gobolka Togdheer waxaanu sheegay inay soo dhaweynayaan ururka beelaha awal bari Cabdilaahi aw Maxamed Cabdiraxmaan ayaa isaguna dhinaciisa sheegay inay taageeri doonaan ururkan lagana waxaan ay dawladda guud oo beesha ka tirsan waxaan leeyahay ilaahay ha ka dhigo ururkii harumar gaara ee ku guuleysta siyaasadda dhulka oo wado ilaahay ka dhigo loo duceeyna xisbi waxa laga yaabaa oo aan leeyahay ku duceeyna inuu ka mid noqdo saddex xisbi soo insha Allah billahi kareem saasan waxa kaloo aanu yar muuqda kulli ahsaabtu way sahansanaysaa كل سنة حسبي ورقة باصها صدق كل يوم ليش هذي لقاه هو القواعد يلا ده هاي الدهارو سافر في عينا لا هربنا لقاه شيء ugu dambeyntiina haweenka ka soo qayb galay wanqasha urur siyaasadeedkan ayaa soo dhaweeyay waxaanay tilmaameen aniga oo ku hadlaaya xisbiga dhalinyarada Iftiin waxaan taageeraynaa oo codkayga siinaynaa Cabdiqaadir Xaaji Cali Obsiye oo aan ugu hambalyeeynaa oo aan xisbiga cadaalad aan qabyaalad iyo xisbi kale wax kala toona aan ku jirin ayaanu taageeraynaa iyo magacayaga iyo ra'yiga waan siinaynaa xisbiga Iftiin aan ku raacsanahay aan ku taageeraynaa anagoo dhalinyaro badan information ka muuqan لا أنا وهاينو أنا وصل بديك دونا هدوء لهي كذي بمانتا السؤال وين يا عبد القادر مركا إن الحسب كان أمسين هنا فايلي موقف كذي مقعية جبا بليه ودن بيه وحاي صايف بحيي الروسيا سعودية عصب كواس أو كهولان سيدا أو كسبان لهاين ددوينها كوكهولنا اللي حدا قبل السوماليلاند وبشير إبراهيم يونيفرسال تي في برعو.